sanadkii 2012 doorasho ay taageertay qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayay baarlamaanka Soomaaliya u fariisteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoona doortay madaxweyne cusub oo noqday Xasan Sheekh Maxamuud. in la helo dawlad loo dhan yahay waxa ay Soomaalida u ahayd arrin muhiim ah oo maqaam sare ka ciyaari karta noloshooda. iyadoo la fiirinayo horumarka la sameeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ansixiyay qaraar loo dhan yahay soona baxay 2 May 2013 waxaana go'aankaasi ku sameysmay ergada taakulaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya. La mission d'évaluation technique en Somalie dépêchée par le secrétaire général en application de la résolution 2093-2013 du Conseil de sécurité. saddexdii Juun 2013 waxaa Soomaaliya loo soo magacaabay erga cusub Nicholas K kaasi oo si dhaqsi badan ku soo gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. There's a new chapter for Somalia where the mission is a mission about building new institutions, building a federal state and supporting the government of Somalia and the Somali people in their aspirations. This new reality, I mean new office with a new not only change of face but also of attitude, of way of doing and working one door to knock. That's what dawladda federaalka Soomaaliya ee la soo dhisay ayaa bilowday geedi socodka dib u eegista dastuurka iyadoo taageero ka helaysa beesha caalamka. talaabadan ayaa ahayd mid loogu baahan yahay afti u qaadista dastuurka 2015 iyo doorashada guud ee dalka loo dareeri doono sida qorshuhu yahay 2016. bartankii sanadkii dhamaaday ee 2013 waxaas qatar ah isku bedelay xaaladda ammaan ee dalka markaasi oo dhaqdhaqaaqa al-shabaab weerar abaabulan ay ku qaadeen dhismihii qaramada midoobay ay ku lahayd magaalada Muqdisho. weerarkaasi waxa uu sababay dhimashada 20 ruux oo ay ku jiraan 4 ajnabi ah iyo 4 ciidamada nabadgelyada ka tirsanaa oo Soomaali ahaa. To heal na muda la kuponya, a time to tear down muda la kupasua and a time to build na muda la kujenga. dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxa ay ka mamnuuceen dhulka ay ka taliyaan badi hay'adaha samafalka ka shaqeeya waxaana taasi ay keentay in cudurrada la isku gudbiyo sida dabaysha oo dalka laga diiwaan galiyay wax ka badan 6 sano ka hor oo haddana dalka dib ugu soo laabta. sanadkii 2013 waxaa bilowday ololaha tallaalka kaasi oo qorshihiisu ahaa in lagu tallaalo in ka badan 2 milyan oo carruurta ka yar 5 sano ah. xanuunka cudurka aan ka hortag mooyaane ka daba tag lahayn ay daawadiisu kaliya tahay inay ka hortag qaataan. bishii August 2013 waxaa dhanka kale magaalada Addis Ababa lagu xaliyay khilaaf muddo bilo ah soo jiitamayay kaasi oo u dhaxeeyay maamulka Juba iyo dawladda Soomaaliya waxaana garwadeen ka ahaa ururka IGAD. heshiiskii loogu magac daray Addis Ababa ayaa la saxeexay kaasi oo lagu sameeyay maamulka ku meel gaarka ah ee Juba waxaana madaxweyne u ah Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo 2 sano hogaamin doona. iyo beesha caalamka oo wixii kabitaan aan uga baahnaa nagu kabto. If I may ask President bishii September shirkii ka dhacay magaalada Brussels beesha caalamka waxa ay ku yabooheen 2.4 bilyan oo dollar waxaana loogu talagalay wixii loogu magac daray hiigsiga cusub. hiigsiga cusub ayaa ahaa heshiis Soomaaliya iyo la wadaagayaashooda caalamiga ah ay ku ballan qaadeen barnaamij 3 sano ah kaasi oo Soomaalida siin doona nabad, ammaan iyo horumar loo siman yahay. You would recall that when I assumed office in September 2012, I made a high call and challenged our development partners and donors
and our friends within the international community to wear new glasses with new lenses and partner with us on a new model. dowladda xasan sheekh uu hogaamiyo ayaa ku dhawaaqday aragtideeda ku aadan Soomaaliya ee sanadka 2016 waa hanaan u muuqda in lagu heli karo waxyaabaha darajada koowaad leh oo ay ku jiraan samaynta maamul goboleedyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga ah ee sanadka 2016 intii lagu guda jiray bishaas caalamka ayaa mar kale si dhammaystiran u arkay qatarta dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaas oo weerar ku qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate Mall ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. weerarkii Westgate Mall ayaa ahaa fariin xusuusin ah oo sheegaysa in xarakada al-shabaab aysan qatar ku ahayn Soomaaliya oo kaliya. bishii Oktoobar mas'uul sare ayaa loo dhiibay hoggaanka bangiga dhexe ee Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigaas iyo samaynta guddiga isku dhafka ahaa ee maaliyadda oo ay ku jireen ajaanib iyo Soomaali waxaa muuqatay horumar la taaban karo ee dhanka maaliyadda inkastoo ay jiraan dhibaato dhaqaale oo dalka laga dareemayo iyadoo kaalmo laga helayo UNICEF iyo deeq-bixiyaasha kale Soomaaliya waxaa ka bilowday ololihii aada dugsiyada waxa uu ahaa mashruuc uu hamigiisu weynaa damciisuna uu ahaa in 1 milyan oo carruur ah ay dib dugsiyada ugu laabtaan ardaydu waa ubax waxa aad u qurxoon degmada kama muuqan arday fara badan oo uniform wata oo boorso sita oo buugaag wata oo wadada maraya oo iskuul u socda ama ka imaanaya ma jirto isbedelka marka saameynta uu shacbiga ku yeeshay waxay tahay qurux badan baa soo siyaatay arday badan oo buugaag sita qalmaan sita waxbarashada u socota waa arrin aad u November 2013 golaha ammaanka waxa uu ballaariyay ka qaybgalka howlgalka AMISOM waxaana uu ku soo daray 4400 oo ciidamo dheeri ah ujeedku waxa uu ahaa in al-shabaab laga saaro goobaha ay weli uga harsan yihiin dalka waxaana qorshaha qayb ka ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya horumarada in la gaaro qorshuhu ahaa waxaa ka mid ahaa samaynta maamulada laakiin arrintaasi waxaa ka hor yimid ismariwaa markii laba maamul oo midba si uu u doonayo in uu hirgeliyo hanaanka federaalka ay taageerayaashoodu isku qabteen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay bishii December 2013 horumarka ganacsi ee dalka waxa uu ahaa mid soo siyaadaya oo sare u kacaya waxaana tusaalaha ugu weyn kobaca ganacsi ee dalka ka jira loo soo qaadan karaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 20 gaari ayaan ku bilownay waxaan soo shaqaynaynay ilaa hadda 3 bilood hadda waxaan maraynaa ilaa 100 iyo tiro ka badan 2013 waxaa hoos u dhacay howlgalladii burcadbadeedda ka qowleysatay xeebaha Soomaaliya hoos u dhacaasi waxaa loo sabaynayaa awoodda ciidamada shisheeye ee ku sugan biyaha Soomaaliya iyo meelaha ka baxsan biyaha Soomaaliyaba iyada oo isfahan wanaagsan uu ka dhaxeeyo dawladda Soomaaliya ee hadda jirta sanadkan cusub ee 2014 waxaa lagu waabaristay xukuumad cusub oo ay ku jiraan wasiiro oo cusub tiro badan waxaana hogaaminaya ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed dhanka kale Puntland ayaa si nabad ah u hirgelisay hanaanka doorashada xorta ah waxaana baarlamaanka dawlad goboleedkaasi ay doorteen Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana taageero sare ku soo dhaweeyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ANSAM xafiiska ANSAM ayaa dhanka kala bilaabay tababar ku aadan xuquuqul insaanka oo la siinayo militariga Soomaaliya waxaana loo baahnaa taageerada dhanka saadka ah ee howlgalka wadajirka ah ee qaramada midoobay ay la qabanayso dawladdu way noo dadaashay UN-ku way noo dadaaleen shacabka iyaguna way noo dadaaleen waa inaan shacabka ka dulqaadnaa cadowgan ku dul fadhiya dhaga badan uu hore u yiri jidii jahadiid waa inaan ummaddan ka dulqaadnaa oo ummaddu ay xorriyad hesho sida haddeerba ay xor u tahay maanta
bakool looga xoreeyey cadowga oo ciidamada dawladda iyo amisom ay gacanta ku hayaan gacantooda ay ku jirto March 2014 waxaa dib boorka looga jafay howlgalladii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo amisom ay ka wadeen gobolada dalka waxaana al-shabaab laga qabsaday 9 magaalo oo cusub inkastoo guule ay gaareen ciidamadii isgarabsanayay haddana waxa ay keeneen caqabado cusub waxaana ka mid ahaa in al-shabaab ay xireen wadooyin sahayda loo marin jiray ciidamada isbahaystay iyo saamaynta uu dagaalku ku yeeshay beeraha iyo xilliga la tabcan lahaa gobolka Shabeellada Hoose si loogu taageero dawladda Soomaaliya xasilinta goobaha ay ciidamada dawladda iyo amisom qabteen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas K ayaa ku dhawaaqay kaalmo gaaraysa 3 milyan oo dollar lagana bixin doono sanduuqa dib u yagleelida nabadda ee qaramada midoobay. I welcome the request by the council in resolution 2124 to be presented with detailed proposals for an additional UN Guard unit to be deployed to protect UNSOM in Mogadishu. waxaa maanta sharaf noo ah haddaan nahay xukuumadda Soomaaliya anoo magacaas ku hadlaya in aan soo dhaweyno gruubkan ugu horeeyay oo ka kooban ilaa 410 in ay qabtaan shaqadaas ilaalada xarumaha iyo shaqaalaha UN-ka. You can see how many women just talking what they need, just to listen. They need someone to listen. This country, we are the majority and we act like a minority. dumarka Soomaaliya ayaan marnaba ka daalin in ay u doodaan awoodsiintooda iyo ka qaybgelintooda siyaasadda Soomaaliya. We want to assure the president and the rest of the government that we are committed and we want to be his partner. We want to be the government's partner in this role. But we are done with lip service and we want real, tangible solutions. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay dhinaca kaalmada dhisidda nabadda Judin Hopkins ayaa waxa ay booqasho ku timid Soomaaliya waxaana ay ku dhawaaqday 7 milyan oo dheeri ah si loo taageero dadaalada lagu dhisayo nabadda dalka. Like shortage of food, vast shortage of food, water supplies. It's so serious from what we've heard from everybody. We're keeping our eyes and ears open of what opportunities, especially for the defected youth from Al-Shabaab, what we can do to dissuade them from ever joining again the Al-Shabaab movement. ANSOM oo taageero ka helaysa saaxiibadeeda waxa ay ku guuleysatay taageeridda hubka dhagista mideynta iyo dib u dejinta dagaalyahanadii hore waxaana xarumo lagu dhaqan celinayo looga sameeyaa magaalooyinka Baydhabo iyo Beledweyne. in qaado iyo horta ahsaankay maalkayna saas waay intaan kooyna sharaf iyo wanaag iyo nidaam iyo sharaf iyo wanaag leh in dhawaay. We want to build a new federal Somalia with a new constitution that is an ambitious but possible plan.